26 جون 1960 dal gaaraynu ahayn jamhuuriyad gaaraynu ahayn hebliye hebel baa ina aqoonsaday waxaas waa sheeka baralay calankii laga taagay muqdisho xilligii daakhiliyada baa hargeysa laga taagay 26 juun Soomaalida shalay xorowday baanu maanta isla doonaynaa caladaha laga soo noqdo odayaasheenii xorriyadda soo qaatay ee gacanta loo geliyay ee uu ka mid ahaa garaadkeenii garaad cali garaad jaamac ee uu ka mid ahaa xaaji nuur oo matalayay awdal iyo duulakan iminka Soomaali ka sii cararaya markay soo qaadanayeen ee xorriyadda ay hantayeen waxa qorshahooda iyo taladoodu ay ahayd inay la midoobaan walaalahoodii kale ee la qorsheynayay in 1 July ay ka qaataan gumaysigii Talyaaniga iyaguna xorriyaddooda halkaa waxaan doonayaa inaan ka bidhaamiyo ma jirin waddan gaara oo xorriyadda loo siiyey inuu waddan gaara sii ahaado ama nation gaara uu sii ahaado haba yaraatee ma jirin xorriyadda waxay odayaasheenaas u soo qaateen oo gacanta looga geliyey inay walaalahooda kale isu yimaadaan oo ay la midoobaan halkaa waxaynu daadafaynanaa 26 juun 1960 dal gaaraynu ahayn jamhuuriyad gaaraynu ahayn hebliye hebel baa ina aqoonsaday waxaas waa sheeka baralay waa laga gudbay Soomaali gobol ah oo xorriyadiisii qaatay oo gobolkii kale Soomaaliyeedna ay isa sugayaan buuxa muxuu noqonayaa qaranka ama nationka aan calanka gaarka lahayn muxuu noqonayaa qaranka ama nationka maanta la hantay aan madaxweynaha lahayn aan astaanta lahayn waxa soo dhami waxa weeyaan waa riya maalmeed calankii laga taagay muqdisho xilligii daakhiliyada baa hargeysa laga taagay 26 juun 1960 intaasaa inoogu filan tusaale iyo markhaati cad oo nool oo aan marnaba ina ka gedmanayn waxaan leeyahay haddaba Soomaalidii shalay midowday baanu maanta isla doonaynaa Soomaalidii shalay xorowday baanu maanta isla doonaynaa caladaha laga soo noqdo Soomaalinimada ha loo soo noqdo ma kala maaranee Soomaali Ilaahay subxaanahu wa ta'aala meel ha isugu keeno oo ha mideeyo maankeeda iyo maalkeeda iyo muruqeedaba